awaysi wanaagsan dhammaantiin kuna soo dhawaada xarunta telefishinka BBC ee London wararka nudiin hayno caawa waxa kamid ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya wali waxa ka socota raadinta dad loo maleynayo inay ku hoos jiraan dhismo 7 dabaq ah oo dumay xeerlaalayaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa hortagaya Congress-ka Mareykanka iyadoo su'aalo laga weydiinayo eriyadii madaxa FBI-da iyo xidhiidhkiisa Ruushka dhaqaalaha ay dhaqaajiyaan waxaanu eegaynaa sida mootooyinku ay dal ku yaala Afrikada galbeed bulshadiisa u saameeyeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa xalay ku dumay dhismo 7 dabaq ah dadkii deganaa dhismahaasi ayaa badankooda xalay laga saaray kadib markii laga shakiyay inuu dumi doono mid kamid ah dadkii dhismahaasi ku noolaa ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen Batiyo ilianza 1 week ago arrintan waxay bilaabatay hal isbuuc ka hor hoos ayuu dhismaha bilaabay inuu ka dildilaaco kadib waxaa imaaday qofkii lahaa waxaana la mariyay shamiito wuxuuna u muuqday wax fiican shalay waxaa dilaacay derbiga oo dhan jaranjarada dhinaceeda markaas ayaan bilownay inaan guriga ka baxno wuuna dumay haddaba mid ka mid ah guddida maaraynta masiibooyinka ee Kenya Pius Masai ayaa ka warramay ilaa iyo hadda inta qof ee la badbaadiyay We have 128 people who were evacuated alive. qiyaastii 128 qof ayaa dhismaha laga saaray kadib markii la arkay inuu dumi rabo dadka hadda aan raadinayno waa 5 qof qoys iyo 1 qof waxaana sidaas sheegay waardiyaha qoys 4 qof ka koobnaa aabbaha wuu maqnaa laakiin qoyska ayaa loo maleynayaa inay gudaha ku jireen iyo nin dabaqa lixaad deganaa oo loo maleynayo inuu gudaha ku jiray asna isla magaalada Nairobi waxaa ku sugan wariyaha BBC-da Maxamuud Cali Maxamed waxaana uu ka warramayaa waxa sababay inay dhismayaashu dumaan Nairobi caadi ay ka tahay inay guriyuhu dumaan waa dhacdo marar badan soo noqnoqotay sanadkii la soo dhaafay guriyo dhowr ah oo dumay dad badan ayaa ku dhintay sababtu waxa farta lagu fiiqaya dawladda hoose iyo dadka la rabo inay la socdaan qaabka guryaha loo dhiso inaanay dan ka lahayn oo waliba ay ku howlan yihiin musuqmaasuq oo aanay eegin tayada guryaha la dhiso sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in meelaha suraranka ah ay culays badan uu ka jiro Nairobi waxaa ku nool in ka badan 4 milyan oo qof oo aan haysanin guryo wanaagsan oo aan haysanin guryo tayo leh taas ayaa la sheegayaa inay iyaduna cilad kala tahay marka haddaba guud ahaan la fiiriyo waa musiibooyinka inta badan ka dhaca Nairobi mahadsanid Maxamuud cadaadiska saaran Donald Trump ee loo haysto in xiriiru ka dhaxeeyay ololihiisii doorashada iyo Ruushka ayaa ah mid aan dhammaan maanta waxaa hor imanaya guddiga Congress-ka xeerlaalayaha guud Jeff Sessions taasi oo toos uga baxaysa TV-yada Mareykanka waxay ku soo beegmaysaa wax ka yar 7 markiisna guddida uu hor yimi oo su'aalo la weydiiyay madaxii hore ee FBI-da James Comey Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka warramaya Senator Jeff Sessions waa sarkaalkii ugu sarreeyay ee maamulka Trump ee su'aalo laga weydiiyo faragelinta la sheegay ee Ruushka ee doorashada wuxuu ahaa la taliye aad ugu dhowaa daacadna uu ahaa Donald Trump xiriirka Sessions ee madaxweynaha ma fiicnayn toddobaadyaddan mar waxaa lagu soo warramay inuu dalbaday iscasilaad maanta waxaa la weydiin doonaa su'aalo adag wuuna iska diidi karaa waxaa la weydiin doonaa inuu sharaxo doorkiisii shaqo ka eryadii madaxii FBI-da James Comey oo isna horay caddayn u bixiyey haddii sida madaxweynuhu sheegay la igu eryey baaritaankii Ruushka maxaa keenay xeer ilaaliyaha guud ma ogi jawaabna uma hayo su'aashaasi Mr. Sessions waxa uu iska saaray isagu baaritaanka Ruushka kadib markii warbaahintu ku warrantay inuu kulan la yeeshay safiirka Ruushka kulan uu horay u qiran waayay xaaladdu way kacsan tahay sababtoo ah dimuqraadiyiinta guddiga ku jira waxay ku cadaadin doonaan Mr. Sessions inuu kala caddeeyo wixii uu horay u yiri markii la ansixinayay bishii January marka wuxuu yiri la taliye Donald Trump ahaan lama xiriirin saraakiisha Ruushka intii lagu guda jiray ololihii doorashada madaxtinimada haddii ay jirto wax caddayn ah in cid ka tirsan ololaha Trump ay la xiriirtay dawladda Ruushka intii ololaha lagu guda jiray maxaad samayn lahayd Senator Franken war kama hayo arrimahaasi waxaa la iigu yeeray inaan ku simo noqdo mar ama labo ololahaasi wax xiriir ah lama samaynin Ruushka kamana faalloon karo arrintaas
qayb saddexaad oo su'aalo laga weydiin doono waxa weeye in xeer ilaaliyuhu uu ogaa in madaxweynuhu duubayay kulamadiisii aqalka cad sida uu ku muujiyey tweet oo ahayd inuu hayo wadahadalkii dhex maray isaga iyo James Comey. ma kala cadday in madaxweynuhu ogol yahay go'aanka Jeff Sessions ee uu markhaatiga kaga bixinayo Koongareeska. iyadoo aqalka cad ay saamaynayso fadeexad iyo dhagaysiga dacwaddan maanta ayaa Donald Trump uu la kulmay golihiisa wasiirada oo si aan horey looga baran kaamarooyin la dhex geeyey madaxdiisii ugu sarraysayna ay mid fursad u qaateen ay ku ammaanayaan madaxweynaha. waa arrin aan caadi ahayn iyadoo Washington ay isku diyaarinayso maalin kale oo xiisad siyaasadeed ay taagan tahay. faahfaahin dheeraada oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka gelaya moobilkaaga. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. Theresa May, ra'iisul wasaaraha Britain, ayaa la kulantay Arlene Foster, hogaamiyaha xisbiga DUP ee waqooyiga Ireland, si ay aqlabiyad ugu hesho dawladdeeda muxaafidiinta. Mrs May ayaan wax hadal ka bixin kulankani, laakiin Arlene Foster ayaa ku sheegtay baraha bulshada in wada hadalladu meel fiican marayaan. BBC-da ayaa aaminsan in heshiis dhow yahay. boqolaal qof ayaa xanuun soo ritay, ilmo yarina uu ku dhintay kadib markii cunto ay cuneen ay ku sumoobeen xero barakacayaal oo ku taala Mosul, Ciraaq. dadka ayaa matagay isla markaana fuuq baxay kadib markii ay afureen Ramadaanta. dadkan ayaa colaadda Mosul ka soo barakacay. guul weyn oo diblomaasiyadeed ayaa Shiinaha u soo hoyatay kadib markii Panama oo sanado badan xidhiidh la lahayd Taiwan ay u jartay isla markaana ay xidhiidhkii imika ku wareejisay Peking. madaxweynaha Taiwan Ai Ing-wen ayaa sheegay inaan dadka Taiwan aanay aqbalaynin go'aankaasi, laakiin buu yidhi annagu bay tidhi Shiinaha diblomaasiyadda lacagta kula tartami kari mayno. Shiinaha ayaa maalgelinta dalkaasi Panama kor u qaaday. dalka Koonfur Afrika 5 sano ayaa laga joogaa markii shaqaale dibadbaxayaal ahaa lagu laayay Marikana xilli ay dalbanayeen in mushaharka loo kordhiyo. 34 ka mid ahaa shaqaalaha macdanta ayaa la dilay kadib dawladda iyo shirkadaha macdantu waxay ballan qaadeen in nolosha shaqaalaha la wanaajinayo. Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa. xasuuqii Marikana fal ku bilowday shaqo joojin nabadeed oo la xiriirtay mushaar kordhin ayaa si dhaqso ah isugu bedelay war dhiig ah. mar kaliya ayaa ilbirqsiyo gudahood 700 oo xabadood la furay, waxaana ku dhintay 34 shaqaalaha macdanta qoda, 78 kalena waa ay ku dhaawacmeen. waa awoodii ugu arxan darada badnayd ee booliska Koonfur Afrika uu adeegsado. bogagga hore ee warbaahinta ayaana lagu soo qaatay. Mazaqolo Magadiwana ayaa 9 rasaasood ku dhacday maalintaas, waa uuna ka badbaaday si uu uga sheekeeyo. booliska waa ay ka go'need inayna dilaan anigoo weliba dhulka yaala oo dhiig iga daadanaya ayay igu soo laabteen kadibna 6 mar oo kale ayay toogteen. xitaa anoo gacmahayga kor u taagaya kana codsanaya in ay caawiyaan. waxaan rabnay minshaar wanaagsan oo keli, balse waxay noo weeciyeen dagaal oo aan u dagaalanno xuquuqdeena. ma iloobi doono xanuunka. inkastoo wax loo ballan qaaday, haddana ma jirto wax magdhow ah oo la siiyey Mazaqolo Magadiwana iyo eheladii dadkii dhintay. guddi baaritaan oo loo saaray xaqiiqda dhacdadan oo in ka badan 300 oo maalmood baaritaan waday, loona soo bandhigay caddaymo badan oo muujinaya in boolisku caddaymo ka been abuureen si ay u daboolaan xaqiiqda dhacdada. welina ma jirto hal sarkaal oo boolis ah oo la maxkamadeeyey. kooxda macdan qodayaasha ee Lonmin ayaa lagu dhaliilay waqtigaasi inaysan diyaar u ahayn inay shaqaalaha kala hadlaan. waxaan filayaa in hal wax ay shaqaalaha si cad u doonayaan, taasoo ah kordhinta mushaarka. meel dheer ayaan ka nimid sidaan kuu sheegay, waa 12,300. waxaan gaari doonaa 2018 1,500, taasi oo ku salaysan mushaarka hadda jira. 5 sano kadib ayaa wax horumar ah aan laga gaarin baaritaankan si loo xushmeeyo dadka naftooda ku waayey. ilaa 2012 waxaan si adag uga shaqaynayay in raaligelin cad ay bixiyaan shirkadda, dawladda iyo dhammaan ciddii geysatay xasuuqa. ma helin taas. waxa aan samayn karna ee ugu yarna waa in goobta derbi lagu wareejiyo si aan u tusno barakadeeda.
si aan la mid ahayn xasuuqyadii hore ee taariikhda koonfur afrika ayaa marikaano aysan u muuqan in ay wax cawaaqib ah ka dhalanayso mana jirta cid la soo eedeeyey welina in dadkii magdhow la siiyo go'aan lagama gaarin wararka ciyaarahana waxaa ugu waaweyn xeer ilaalinta Spain ayaa ku eedeysay ciyaartooyga Boortaqiiska ah Cristiano Ronaldo inuu dalkaasi ka khiyaamiyay 16 milyan iyo $1 oo cashuurtii lagu lahaaya xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in dembigan ku xidhiidho isticmaalka muuqa iyo magaca Ronaldo intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2014 December ayaa waraaqa la helay muujiyeen inaan cashuurtii xaq loogu lahaa aanu bixin Ronaldo isagu wuu dafiray eedeymahani Iiraan waxay noqotay wadankii labaad ee u soo baxa ciyaaraha koobka adduunka ee kubadda cagta kadib markii ay Uzbekistan 2-0 kaga badiyeen ciyaar ka dhacday Tehran Iiraan ayaa wacdar muujisay intii ay ku jireen wareegiis reebreebka iyagoo 6 ka mid ciyaarahoodii ku guuleystay weliba ka darane qool qura lagama dhalin waa markii shanaad ee Iiraan ka qayb galayso tartanka koobka adduunka weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Antonio Griezmann ayaa saxeexay kontraad ilaa 2022 oo uu joogi doono Atletico Griezmann ayaa lagu xidhiidhiyay inuu Manchester United u wareegayo laakiin wuxuu goostay inuu iska joogo Atletico kadib markii la ansixiyay inuu sii joogo waxaa la sheegay in Manchester United ay ka xiisa jabtay inuu u soo wareego 26 jirkani mootooyinka ayaa Afrika caan ka ah balse caasimadda Togo ee Lome meel kasta ayaad ka helaysaa sida loo jecel yahay ayaa ka dhigaysa inaad u qaadato in qof kasta leeyahay mooto Cismaan Cabdi Xasan ayaa inoo haya inkastoo aysan laysan haysan haddana Faa'isa Ciise oo ardayad jaamacadeed ah ayaa ku faraxsan inay iibsato mootadii ugu horreysay dhugdhuglaydan motoorkeedu yar yahay waxay qayb ka tahay nolosha caasimadda Toga ee Lome waxa kaliya ee hadda hortaagan ayaa ah midabka ay dooran lahayd tan ama tan ma aqaan mid ay tahay balse waxay ila tahay inaan doorto mid ka mid ah noocyadan nooca ay doorato marka ugu horraysa ee Faa'iiso waddada korto ma noqonayso tan keliya ee jidka socota waddooyinka waddanka oo ciriiri iyo kuwa aan hagaagsanayn ah ayay mootooyinka yihiin waxa laysku hallayn karo oo ka raqiisan baabuurta waddo kasta waxaa ka furan meel lagu iibiyo mootooyin tirada badan ee noocyada Shiinaha lagu sameeyo waxay u fududeeyeen dadka reer Togo in ay iibsan karaan iibinta mootada ee Togo waxay muhiim u tahay dhaqaalaha sababtoo ah dadka noocyadan ayay qaataan waxayna u beddelaan tagaasi marka tiro aad u badan ayaan iibinaa waxaan haynaa 200 oo mooto wakiilo badanna waan ku leenahay Togo waxaan oo mootooyin ah oo waddooyinka socda waxay u baahan yihiin dayactir taasina suuq wanaagsan ayay u tahay makaanikiinta hagaajisa ee dib ugu soo celisa waddooyinka waxaan sameeyaa mootooyinka maalintii waxaan shaqeeyaa 10 ilaa 12 saacadood markaa shaqo fara badan ayaa ii taala waan jecelahay shaqadayda waana waxaan in badan soo baranayay iminkana waxaan haystaa geerashaan leeyahay oo aan ku sameeyo shaqaduna aad ayay noogu badan tahay oo suuq u camiran yahay waxay alaabaha iyo dadka ka qaadaan waddooyinka buuxa ee Looma waana caddahay in mootooyinkan ay kaalin weyn ka qaataan dhaqaalaha magaalada oo la'aantood aysan shaki ku jirin in uu hoos u dhici lahaa ugu dambayntiina ha eegin haddaad meelaha dhaadheer ka baqatid ninka la yidhahdo magaciisa caarada ama magaciisa kale ninka Faransiiska ah Alan Robert ayaa wuxuu korayay dabaq dheer oo ku yaala Barcelona isagoo waxba qabsanaynin ciidamada booliska kuma faraxsaneen talaabadiisa Robert ayaa hore wuxuu soo koray dabaqyo dhaadheer oo ku yaala caalamka oo ka mid yihiin San Francisco Golden Bridge iyo Dubai Burj Al Khalifa barnaamijkayga caawa intaas ku dhan yahay waa ku mahadsantiin daawashada waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan iyo kulanti dambe